marka cashirkan maanta aynu dhigan doonaa haddaad si fiican u fahanto wuxuu noqon doonaa cashiradii ugu badnaaya noloshaada aad wax ka fahanto qofka markasta dadku amar wada siiya dadkoo dhan wuu khaldan yahay qofka dadkoo dhan wada dhiirigeliyaana isagna wuu khaldan yahay qofka dadka oo dhan waxaad ka warantaa shaqada ku wada wareejiya wada idhaahdina isaguna wuu khaldan yahay waa yahay haddaa mid mayna sheegahay shaqooyinka soo idima lahayn hoggaanku hadduu baabao shaqaduna waa baaba ama hogaamiye haddii la waayo shaqadu ma kala soconayso meelaha ugu badan ee hogaamiyaashu ku khaldamaan tan baa ka mid ah waayo bismillahi raxmaan raxiim marka koobaad waxaad ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan maanta waxaynu qaadanaynaa waxaynu soo gaarnay chapterkii labaad maalinka hore waxaynu soo dhiganay waxay ahayd chapterkii koobaad inta ugu badanna wuxuu ahaa basekii leadership maxaa loo yaqaanaa waxyaaba ay ku kala duwan yihiin leadershipka iyo managementiga muxuu ahaye oo welibana assignment aan idinka diray waxyaabahaas ka sheekeynayay maanta haddaba cashirka halkaa ku qoran magaciisa waxaa loo yaqaanaa waa situational leadership cashirkani ka cashir ahaan marka la eego maaha wax sii badan keliyata maanta waxaan dhigan doonaa gebigeegaba oo hal slide haddana wuxuu ka mid yahay cashirada ugu muhiimsan marka la eego maadadan aynu maanta joogno welibana waxaan akhrisanayay muxuu ahaye ixsaa'iyaad laga sameeyey tirakoob laga sameeyey dadka ugu badan ee leadershipka wax ka bartay qaybta situational leadershipka loo yaqaano waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay lacagta ku bixiyaan marka cashirkan maanta aynu dhigan doonaa haddaad si fiican u fahanto wuxuu noqon doonaa cashiradii ugu badnaayee noloshaada aad wax ka faa'iiday wuxuu ka sheekeynayaa chapterkani iminka intii hore waxay ahayd theory-gii bay ahayd waynu soo dhammaystirnay maanta waxaynu si toos soo bilaabaynaa haddii ilaahayna gaadhsiiyo practicalkii weeyaan cashirku markaa maanta wuxuu ka warramayaa sidee baad u noqon kartaa qof hogaamiya dadka xaalad walba ay ku sugan yihiin waayahay su-aal ba haddaba ugu horreyso cashirka aynu isweydiin doonaa su-aashaasi waxa weeyaan cashirku markuu iminka maanta inoo dhammaaday aynu soo gebagabeynayna xiisadda waxaan doonayaa in su-aasha inaad ka jawaabtaan su-aashu waxay ku leedahay dariiqa saxda ee wax lagu hogaamin karo ama dariiqa ugu saxsan ee leadershipka loo marayay muxuu yahay intiina imika halkaa fadhida su-aasha ayaa si yaroo simil uga jawaabi karaya aye dariiqa ugu saxsan ee wax lagu hogaamin karaa waa maxay ha inaad mar walba halkaad joogtaad ku xallisho very good aad baad u mahadsan tahay su-aal kale yaa haya waaye marka maanta waxaynu dhiganaynaa waxa weeyaan waa dariiqa saxda ee hogaamin loo samayn karo ama wax loo hogaamin karayo okay waxaynu haddaba ku qaadanaynaa aragtidan magaceega la yidhaahdo situational leadership ayaynu taariikh ahaan yar eegi doonaa backgroundkeyga waxa iskale laba dhagtar oo aad waaweyn oo culimada iyo aqoon-yahanada cilmigan leadershipka ka mid a waa hirsi ninka la yidhaahdo hirsi iyo blanch baa loo yaqaanaa toddobaatimeyadii bay soo baxday aragtidani intaas marka halkaa aynu ku sharaxnay dib baynu noogu soo noqon doonaa marka hore waxaan doonayaa aragtida inaynu isla eegno kadibna sharaxaadeeda aynu ka bixino qof walba markaa waxaan ka rabaa waxaan doonayaa inaad sawirto sawirkan soo socda waxaad samaynaysaa xariijintaasaad sawiraysaa sida ay taadu sawiraysaa waa dhinaca marka saa loo eego jiifka waa waxa weeyaan 5 line taaguna waa 3 weeyaan may taaguna waa 4 weeyaan xabad saasaad sawiri doontaa hoostana waxaad sawiraysaa xabad iyada leeg marka wax yar yar looma baahno kuwa waaweyn baad ku sawiraysaa hal page oo maran baad la soo baxaysaa intaa un ay ku sawiran tahay kadibna qoraalkan soo socdaynu ku qori doonaa marka qoraalkan imika halkan ku yaala marba in baynu qoraynaa hawada qorin imika sidaa ugu qoran yahay marba in baynu doonaynaa inaynu qorno si aynu si fiican ugu fahmi karayna aragtida marka labadaas sawir baa laga doonayaa arday waliba inuu ku sawiro meesha ha lagu dhaqsado waqtiguna waa inahayaa sawirkaa yar markaa markaynu fahanno khalaas chapterkii u dhammaaday halkaasaynaanu cashirkii kusoo xidhaynaa intii aan ka doonaynay maanta intaas ahayd waa la wada sawiraan filaya soo maha ha lagu dhaqsado maaha muhiim maaha inaad mastarad qaadato ama aadba ku sawirato linku iska jexjeexnaado wax macnaa male line dheer baad soo sawiraysaa kadibna waxaa la doonayaa un waxa ku qorqoran baynu doonaynaa inaynu xabad xabad ugu qorno sidaa imika ay tahay iyadoo qoran haddaan ku siiyo lagama yaabo inaad fahanto laakiin waxaan rabaa marba kelmadaan kuu sheego inaad xariijinta ama laynka aad ku dul qorto waay
waa dhamaystirteen soo maaha waynu ka socon karaynaa okay ciwaanka sare markaa waxaad ku dul qoraysaa waa leaders styles waa ciwaanka ugu sareeya waa halka aan doonayna inaynu isla fahano marka koobaad aragtidani waxay ku leedahay dadka hogaamiyeyaasha iyo leaderska loo yaqaano ayaa la kala qaybinaya imise type ama imise nooc oo hogaamiyeyaala ayaa jira waa aragtidani halka ay ka socoto dadka followerska ee la hogaamiyana waa la kala qaybinayaa dadka leaderskana qaybaa loo sameynaya waa la kala qaybinaya waayahay haddaba waxaynu u kala qaybinaynaa hogaamiyeyaasha jira shakhsi gaara ma magacaabayno oo ma lihiin waa hebel iyo waa hebel laakiin hogaamiye waliba oo adduunyada soo maray wuxuu u qaybsamayaa 4 qaybood mid ka mid uu leeyahay intaynaan gaadhin 4 qaybood ee hogaamiyeyaasha loo qaybiyo waxaynu eegaynaa marka koobaad maxaynu ku qiimeynay kala qaybintan 2 arrimood baa lagu qiimeeyay arrinta koobaad waa halka ku qoran style baa horta loo yaqaanaa style macnaha waxay ka dhigan tahay waa qayb weeyaan marka halkan imika la joogo waayahay 2 arrimood baynu ku qaybinaynaa arrinta koobaad waa maxay waa halka waa tahay noogu sawiran waa direction ereyga direction macnihiisa waxa laga wadaa waxa weeyaan waa hogaamiyaha amarka bixiya ee dadkana wax u sheega qofkaas loo yaqaanaa directive ama qof direction ilan direction kood garanaysa waa jihada weeyaan waa qof jiheeye ah oo wax bixinaya hogaamiyaha labaadna waa maxay waa motivation amar ma bixiyo laakiin muxuu sameeyaa dhiirigelin buu wax ku hogaamiyaa marka hogaamiyeyaashii si guud ahaaneed imisay noo qaybinay ma intaynan 4 u qaybin imika imisay noo qaybinay 2 noo qaybinay qof amar wax ku hogaamiyo amar bixiya iyo qof dhiirigelin wax ku sameeya waayahay labadaa haddaba arrimood baynu 4 qaybood aynu ka soo saaraynaa 4 nooc oo hogaamiye ayaynu ka soo saaraynaa labadaa qaybood waayahay hogaamiyaha koobaad marka magacyada dusha sare ma qoraysid imika waxaad sawiraysaa kaliya tan laymankan soo socda hogaamiyaha koobaad wuxuu sameeyaa waa qof directionkiisu iyo amarkiisu uu fara badan yahay dhinaca kalena motivationkiisa iyo dhiirigelintiisu ay hooseyso arawiyadan meesha ku sawiran dusha sare ka u sawiranna muxuu ka dhigan yahay macnihiisu waa qofku halkuu ku xoogan yahay ka hoostuna muxuu ka dhigan yahay halkuu ku liita weeyaan marka nooca koobaad ilan 4 nooc baynu u kala qaadnay hogaamiyeyaashii nooca koobaad ee hogaamiyeyaashu waxa weeyaan waa qof amarkiisa fara badan oo amar fara badan buu sameeyaa dhinaca kale dhiirigelintiisa iyo motivationkiisuna waa low u hooseeya kaa magaciisa waxaa loo bixinayaa directive waa qof amar badan waana nooca koobaad ee hogaamiyeyaashu ay leeyihiin waayahay nooc labaadoo waxaa jira directionkiisa iyo amarkiisu uu fara badan yahay isaga laftiisoo awaamir fara badan bixiya dhinaca kalena waa maxay motivationkiisa iyo dhiirigelintiisuna way badan tahay isagana qofkaana maxaynu u bixinaynaa coach baa loo yaqaanaa waa tababare waayo tababarku labada arrimood ayuu ka kooban yahay waa awaamir bixin iyo inuu qofku instruction ku siiyo dhinaca kalena waa maxay waa dhiirigelin oo imika raggan tababarayaasha dee waa ta lagu magacaabo dhiirigeliyayaal waa ta la yidhaahdo qof waxna kuu sheegaya oo macluumaadkii ku siinaya dhinaca kalena ku dhiirigelinaya kaa maxaa magaciisa la yidhahdaa waa coach tababara weeye marka waa qaybta labaad ee ay ka kooban yihiin hogaamiyeyaashu nooc kaloo saddexaad baa jira waa qof waxa weeyaan directionkiisa ama awaamirtiisu ay hooseyso amarba ma bixiyo laakiin muxuu ku shaqeeyaa motivation mar kasta waad samayn kartaa dadaal halkan waad ka gudbi kartaa waxa waa la qaban karaa mar kasta dhinaca dhiirigelinta iyo motivationka ayuu awoodda saarayaa kaana magaciisa maxaynu u bixinaynaa motivator da iska cadayba isagu waa dhiirigeliye nooca ugu dambeeya hogaamiyeyaashu waxa weeyaan waa ka amarna aanan bixinin oon waxba dadka u sheegin dhiirigelinna aanan samaynin muxuu sameeyaa markaa shaqadii kastee loo keenaba qofunbuu u dhiibaa maanta shaqadana taalla hebelow wad adigu taana wad sidii loo qabanayana uma sheego kumana dhiirigeliyo kaana magaciisu in magac xun loo bixiyay ahayd laakiin waa la yar qurxiyo waxaa loo bixiyey delegator waa shaqo qaybiye delegationku waa shaqadoo la qaybiye weeyaan marka halkaa imika maxay noo soo baxay hogaamiyeyaashii imsaa loo qaybiyey 4 qaybood waa ka ugu horeeyo a directive oo amarkiisa fara badan waa coach
oo amarkiisuna u badan yahay dhiirigelintiisuna way badan tahay motivator waa mid dhiirigelintiisu badan tahay laakiin amarkiisu uu yar yahay waxa ugu dambeeya delegator mid labada midna aanan lahayn afartaa style ama afartaa nooc baa loo qaybiyaa hogaamiyeyaasha waa la wada fahmaa filayaa soo maha afartaa qayboodna maxaa lagu qiimeeyey laba arrimood waa directionka oo ah macluumaad bixinta iyo amarka iyo motivation oo ah dhiirigelinta soo intaa lama fahmin waayahay qaybta hooseynu haddaba gelaynaa waxaynu eegaynaa dadka la hogaamiyey flowerska loo yaqaano iyo buttons intay u qaybsamaan eg ereyga button iyo ereyga style waa laba ereyoo isku macnaa laakiin marka hogaamiye la sheegayo waxaa loo isticmaalaa isaga style nooca hogaamiyaha marka la sheegayo flowerkana maxaa loo isticmaalaa button baa loo isticmaalaa okay halkaa haddaba afartii qaybood hogaamiyuhu u qaybsamayay waan isla fahanay afarta imika waxaynu tirinaynaa inuu qaybinaynaa dadka iyagana la hogaamiyo intay iyaguna ay u qaybsamaan iyaguna afar bay saasoo kale u qaybsamayaan haddaad haddaba intaa isku fahanto waxaad noqonaysaa qof xaalad walba oo lagu jiro hogaamin samayn karaya oo dadka hogaamin karaya waayahay dadka haddaba flowerska la hogaamiyo iyagana laba arrimood baa lagu qiimeynaya arrinta koobaad waxa weeyaan waa waxa loo yaqaano efficiency waa maxay efficiencygu yaa macnayn karaya waxay tahay efficiencygu waa maxay very good weeyaan waa waxtarka wax kale yaa haya si kale yaa u dhigaya efficiency ereygaa macnihiisa ninkaasi wuxuu yidhi waa waxtar haye nidaamka shaqada loo qabto haye very good efficiency ka si fiican baad fahansantihiin efficiency waxaa la yidhahdaa qofku inuu shaqada sidii saxdii u qabto marka af carabiga alkafaa'a ba u yaqaanaan waa qof macnaha kuf-iya oo shaqadani ehel u aweeyaan maxaa kaloo lagu qiimeynaya dadka flowerska feelinka xamaasadda iyo dareenka uu shaqada u hayo okay haddaba tusaale yaro fudud baan bixinayaa tusaalaha ayaad insha allah aan jecelahay inaad ku fahmi doontaan waxaa jira ka soo qaad imika arday sanadkan ayuu ka qalin jebinayaa ka soo qaadba kulliyadda loo yaqaano engineerinka ayuu sanadkan ka baxaya waayahay qofkaasi marka ugu horeyso ee shaqo la siiyo waxaad ka warantaa feelinkiisa dareemihiisa ka waran iyo xamaasadiisa marka ugu horeyso jaamacaddii baad ka soo baxday waa lagu shaqaaleysiiyey ka waran dareenkiisa qofka dee waa hay weeyaan aad buu u sarreeyaa haye waxaad ka warantaa haddaba efficiencygiisa ka hor shaqada iyo siduu u garanayo may sarreysaa mise waa hooseysaa waa shiirooda iminkuba soo qalin jebiyeyba waayahay haddaba qofka noocaas oo kale ah ee imika shaqadu ay ku cusub tahay dabcan xamaasadiisuna ay sarreyso magaciisa waxaa loo yaqaanaa junior weeyaan ama beginner baa la yidhahdaa waa qof imika barbarada weeye waayahay magacaasaynu isaga u bixinaynaa qofku marka ugu horeyso shaqada soo galo waxaa lagu yaqaanaa inuu efficiencygiisa iyo qaabka uu shaqada u garanayay ay hooseyso laakiin dhinaca kale farxadda iyo niyadda uu shaqada u hayay ay aad u sarreyso marka qofka junior baynu ku magacaabinaa waayahay waxaad ka warantaa qofkii injineer buuba aha ka soo qaad ardaygii waxaa laga shaqaaleysiiyey wasaaraddii guriyeynta iyo dholalka iyo waxaa dhisaysa laga shaqaaleysiiyey wuxuu shaqeeyey 5 bilood farxaddii iyo xamaasaddii ama 6 bilood buu shaqeeyey ka soo qaad farxaddii iyo xamaasaddii uu shaqada u hayay ka waran halkee maraysaa miyay sarreysaa baad u malaynaysaa oo isla maalintii shaqada uu soo galay ma sidii buu ugu faraxsan yahay mise way hooseysaa mise waxaad leedahay waa dhexdhexaad maxaad u malaynaysaa feelinkiisu qofkaa waa sidee waayahay waxaa qofkaa loo badinayaa maadaamuu shaqada dhowr bilood uu ku jiro xamaasaddii iyo firfircoonidii uu shaqada u hayay inay hooseyso qofka waxaa la yaqaanaa marka maalimaha ugu horeysa shaqada la siiyo uu soo kal lahaa wax kasta wax ii dira wuxuu ku wareeriyaa dadka wax ii dira mar walba wax kasta haddii xataa shaqo overtime loo diro waqtigeedii ka baxsan uu qabtaa laakiin maalimaha dambe step by step isagii waxaad arkaysaa qofkii jarjaraya seexseexanaya maxaa keenaya wax kale maaha feelinkii iyo xamaasaddii uu shaqada u hayay waa wax normala waxaasi ayaa hoos u soo dhacaya waayahay 6 bilood buu shaqeeyey ka waran
xirfadii uu shaqada u lahaa halkee bay maraysaa iyaduna halkee bay maraysaa bas leedin xirfadii shaqada u hayay injineer 5 bilood shaqaynayay uun ka soo qaad tusaalaha halkee buu maraya xirfadiisu maxaa lagu qiimeyn karaa weli way hoosaysaa dee qof dee xariifa oo maanta wax loo dhiiban karaya maaha waayahay eg xirfadii weli waa intii eg sidii hore way dhaantaa laakiin still waxaan leenahay way hoosaysaa waxa ugu soo biiraya xamaasadii uu shaqada u qabayna way hoosaysaa iyaduna qofkaasoo kale maxaynu u bixinaynaa magaciisa medium waxa la odhanayaa isagana waa dhexdhexaad waayahay waxaad ka warantaa injineerkii wuxuu shaqaynayay 5 sano ayuu injineernimadii iyo wadooyinkii dawladdu ay dhisaysay iyo guryihiiba ku soo shaqaynayay waayahay khibradii iyo xirfadii uu shaqada u lahaa halkee maraysaa maanta dee way sarraysaa maanta waa injineer buuxuu qofkii noqonayaa dareenkii iyo xamaasadii uu shaqada u hayayna miyaa hoosaysaa mise u sarraysaa qofku markuu 5 years uu ku jirayo shaqadii ama 3 years 4 years uu ku jiro xamaas muxuu ahaay experience-ki sax u sarreeya laakiin xamaasadiisii waa maxay way hoosaysaa waxa ugu dambeeya qofka loo yaqaano expert waa ka imika aan ku khaldiyay waxa weeyaan ka waran qofkii wuxuu shaqeeyay 15 sano khibradiisii ka waran dee wahay isaga dadka wadanka wuxuu ka mid noqonayaa dadka ugu tayada fiican xamaasadiisiina hayba iyadna la noqonaysaa sababtoo ah waayo lacagtiisiina way korodhay boosas ama jagooyin sarena uu ka gaadhay shaqadii waayo qof maanta engineer haya 15 years ama 20 years soo shaqaynayay dee wadankaba isaga ugu sarreeya marka wuxuu sarkiyaa inayna cid ka sarreysaa bayna jirin xamaasadiisuna waa hay experience-kiisuna waa hay afartaa qaybood baa markaa loo kala qaybinayaa dadka floweriska ee shaqeeya ee iyaga la hogaamiyo afartaana waxaa loo kala qaybinayaa sarena maxaa loo kala qaybiyey dadka leaderska ee wax hogaaminaya marka leaderkii laba lagu qiimeeyey waa directionka iyo motivationka qofka flowerkana maxaa lagu qiimeeyey efficiency-ga iyo feeling-ka lagu qiimeynaya waayahay aragtidii halkaas ku dhamaatay cashirkeenina halkaas ku xidhan yahay maxaad ka faa'iideen ayaa wax ka faa'iideen intii loo qaybinayo waad fahanteen soo maaha waayo waad xishooteen waxay ahayd inaad tirahdaan waxba kamaanaa faa'iidin waxaad noo sheegtay un inay floweriskana intaa loo qaybiyo leaderskana intaa loo qaybiyo faa'iidadii waa tan haddaba qofka juniorka ee maanta shaqada ku cusub ee efficiency-giisa iyo shaqada qaabku u garanayay ay hooseyso xamaasadiisuna ay sarreyso sideeba isaga loo hogaamiyaa maxaa ku beegan juniorka directive qofkaasi uma baahna in la dhiirigeliyo waayo marka horeba shaqadu ku faraxsan yahay muxuu u baahan yahay laakiinse in la tilmaamo oo amar la siiyo oo la yidhahdo sidaa u qabo sidaa u qabo sidaa u qabo qof kasta oo shaqada ku cusub waa khalad inaad motivation siisay iyo dhiirigelin waayo already marka horuba motivate garaysan yahay qofkani keliya tan muxuu kaa sugayaa directionkii inaad u tilmaanto laakiin khaladka labaadee dadku ay sameeyaan waa maxay ama leadersku ay sameeyaan qofkiiba shaqadii ku cusub loomaba sheeginba sida loo shaqeeyo qabuun baa tiri waa kani uu baabinaya qofkaasi shaqadii ama waxaad isku dayday markuu shaqadii soo galay maanta kuugu horeysa sidan samee sidan waxaan jeedaa horumar baad ka gaari karaysaa shaqadan halkan qabo uma baahna waxa qofku waayahay 5 bilood buu shaqeeyay qofkii ama qof waxa shaqada maanta ku soo biiray ilaa nimanka idinku waxaad baranaysaan maamulkii mashaariicda weeyaan haddaad shaqaalaysiiso oo qofka aad shaqaalaysiinaysaa uu noqdo qof bilowa saasaa loola dhaqmaa hadduu qofka aad shaqaalaysiinaysaa uu yahay qof medium ka waran oo 5 bilood 6 bilood meel ka soo shaqeeyay waxa la iska garanayaa qofkaasi inuu shaqadan imika tusaale ahaan haddii aan idhaahdo galaaska haddaan idhaahdo maanta hebel baa guddoomiye haddii la dooranayo matalan ka soo qaad oon idhaahdo khaliifo maanta guddoomiye noqo waxaa laga yaabaa inuu idhaahdo efficiency-giisu waxaa laga yaabaa inuu hay yahay oo shaqada guddoomiyenimada iyo waxa uu la soo qabsado si fiican u garanayo laakiin maybe waxa suuragala feelingkiisa inuu low yahay oo idhaahdo waxaan waan ku daalay iga daayay
waayahay qof markaa noocaas oo kale haddii la shaqaalaysiiyo muxuu haddaba kaaga baahan yahay istaylka loo isticmaalayaa waa maxay waa coach tababara qofkaa tababar baa loo baahan yahay in loo furoo la siiyo hadduuba idhaahdaba qofku waan soo shaqeeyey waxaad eegaysaa inta bilowda soo shaqeeyey hadday dhowr bilood ay tahay markaaba waa inaad fahanto qofkani xamaasadiisuna way hooseysaayo shaqadan hore usoo qabto kuma faraxsana maanta numberka labaad experience badanna ma haysto qofkaa markaa isla markaa aad shaqaalaysiiso maxaa loo furayaa tababar baa loo furayaa waa number kow horta maadaamuna khibrad badan ka haysanin shaqada waa in loo diro tababar oo la tababaro dhinaca kale muxuu kaa doonayaa dhiirigelin waa inaad siiso oo aad noqoto motivation waa in qofkii la siiyo waayahay waxaad ka warantaa hadduu kuu soo shaqo tago qof 5 sano soo shaqeeyey ama 4 sano soo shaqeeyey qofkaasi muxuu kaaga baahan yahay sidee baad u hogaamin lahayd isagana maxaad ku samayn lahayd isagana isteelka u fiican isagana lagu hogaamin karaa waa maxay keliyaata isagu muxuu kaaga baahan yahay motivation waxaa laga yaabaa shaqadii hore in laga soo eriyey inuu niyad jabsan yahay ama inuu shaqada ku faraxsanayn uma baahna qofkani in loo tilmaamo la idhaahdo sidan u qabo ama in amar la siiyo maya keliyaata qofkaasi wuxuu kaaga baahan yahay xabaddaa waxay yidhahdeen qofkaasi wuxuu u baahan yahay in la ixtiraamo shaqadana lagu wareejiyo waxa ugu badan ee qof dhiirigelinta ugu badan ee qof la siiyo maad garanaysaa waa maxay dhiirigelinta ugu badan ee qof la siin karaayo ee dhiirigelintu ay fara badan tahay qofka marmarka qaarkood waa lacag baa la siin karaa marmarka qaarkood qadarin baa la siin karaa marmarka qaarkood shahaado sharaf baa la siin karaa waxaasoo dhan dhiirigelin weeyaan laakiin waxaa la ogaaday halka ugu sarreysa dhiirigelintu waxa weeyaan waa in qofka shaqada isaga loo daayo oo la yidhaahdo adigaa mas-uulka ah markaa qof advanced hadduu kuu yimaado isagu keliya kaagama baahna inaad shaqada u tilmaanto u garanaya maxaa lagaaga baahan yaho keliyaata inaad dhiirigeliso dhiirigelinta ugu fiican aad siin kartaana waxa weeye in isaga shaqadii lagu wareejiyo in isaga lala tashado oo la yidhaahdo maxaynu samaynaa sidaynu wax u wadnaa maxaad dareensiinaysaa qofka markaa maxaynu samaynaa halkaa ka waran muxuu dareemayaa qofku inaad isagii aad ixtiraamayso oo uu qayb ka mida shaqadii uu yahay go-aankiina uu qayb ku leeyahay ujeeddada adu aad ka leedahay waxa weeyaan waa inuu motivationkiisii iyo dhiirigelintiisii ay kor usoo kacdo qaybta ugu dambaysa hadduu kuu yimaado nin in badan soo shaqeeyey oo la idhahdo hala shaqaalaysiiyo wax badanna muxuu ahayey ka qaadanaya businesskii oo lacag fara badan lagu siinayo qofkaasi dhiirigelinna kaagama baahno intaasaa dhiirigelin ugu filan shaqo inaad bartana kaagama baahna muxuu kaasi kaaga baahan yahay isaga isteelka lagula dhaqmayaa waa maxay delegation weeyaan waa in shaqada lagu wareejiyo halkaa kasii wadan baad leedahay adigu kadibna faraad ka qaadaysaa waayahay su-aashii haddaba intaa horta maad kala fahanteen types of leaderska iyo flowerska waad kala fahanteen baan malinayaa soo maha su-aashii ugu horreysaa daba idi weydiinaya kusoo celinaya waxay ahayd what is the right form of leadership dariiqa ugu saxsan ee wax lagu hogaamin karaayay muxuu yahay waayahay ma directive-kaa ugu fiican baad is leedahay ma coachkaa ugu fiican baad leedahay ma motivatorkaa ugu fiican baad is leedahay mise delegatorkaa ugu fiican imisaale directive-kaa ugu fiican waaye cidna imisaale coachkaa ugu fiican afartaas waaye imisaale motivatorkaa ugu fiican waaye imisaale delegatorkaa ugu fiican okay afartiinu baad khaldantiin jawaabta saxda ayaa garanaya waxay tahay afarta waa la isticmaalayaa haddii lagu idhaahdo sida ugu fiican ee wax loo hogaamiyo noo sheeg su-aashaa waxay yidhaahdeen ragga leadershipka muxuu ahay ku takhasusay waxay yidhahdeen waa silly question marka hore waa su-aal khaldan weeyaan hogaamintu maxay ku xidhan tahay qofka markaas iyo xaaladda uu joogo markaa typeka ugu sarreeya iminka muxuu ahay leadershipka theoriska iyo aragtiyaha wax lagu hogaamiyay 13 aragtiyood baa jira waad baari kartaan google-kii ku jirtaa ta ugu wanaagsan waa taa iminka maanta aynu dhiganay weeyaan waa in leadershipkii iyo hogaamintii loo qaybiyo maxaa lagu xisaabtamayaa laba arrimood kolba qofkaa ku hor jooga iyo kolba xaaladdu ku sugan yahay ayaa la eegayaa markaasaa waxaa loo isticmaalayaa kolba
styleka hogaaminta ee ku wanaagsan hogaamiyaha marka ugu fiican waxa weeyaan waa qofka sidaa dadka u kala qaybiya marka wuxuu ku remember waxaad ogaanaysaa effective leader qofku markuu yahay chooses his style according to the situation and doesn't lead everyone in one style dadka oo dhan qofka ku wada hogaamiya hal style oo kaliya matalan tusaale ahaan qofka markasta dadkun amar wada siiya dadka oo dhan uu khaldan yahay qofka dadka oo dhan wada dhiirigeliyana isagna uu khaldan yahay qofka dadka oo dhan waxaad ka warantaa shaqada ku wada wareejiya wada yiraahdina isaguna uu khaldan yahay waa yahay haddaba mid baan idin sheegaya shaqooyinka soo idima lahayn hogaanku hadduu baaba'o shaqaduna waa baaba ama hogaamiyaha haddii la waayo shaqadu ma kala soconayso meelaha ugu badan ee hogaamiyaashu ku khaldamaan tan baa ka mid a qof maanta bilowa oo juniora ayaa waxaa laga yaabaa inuu motivation u isticmaalo oo isiraado kan shaqadu ku cusub yahay maanta ku dhiirigeli uma baahnayn qofkan dhiirigelin kaliyaata muxuu kaaga baahnaa wuxuu kaaga baahnaa muxuu ahaayay in la tilmaamo isagu dhiirigelintiisii u wata waayo waxaad ka warantaa qof maanta junior oo shaqada soo galay haddaanu isticmaalo ka waran delegation oo shaqadii oo dhan ba isaga ku wareejiyo halkaa maxaa ka soo socda maxaad u malaynaysaa halkaa inay ka soo socdaan dee shaqadaasi way baaba'aysaa laa shaka inay baaba'aysa cidna lama weydiinayo haddii loo yeedho ka waran qof maanta mediama oo dhowr bilood soo shaqeeyay isla shaqadan imika halkan uu ka qabanayo dhowr bilood oo hore ku soo shaqeeyay qofkaasi muxuu kaaga baahan yahay labadiiba inaad tababar u furto oo shaqadii la baro iyo in la dhiirigeliyo labadiiba uu rabaa qof noocaas oo kale ah waxaad ka warantaa haddii aan delegation aynu samayno aynu shaqadii isaga kaliya ku wareejino halkaa maxaa haddana ka soo baxaya shaqadii inay baaba'do marka hogaamiyaha ugu wanaagsan waxa weeyaan cashirka ugu qaalisan ee hogaaminta lagu dhigtaay waa inaad kala fahanto situational leadershipka weeyaan oo aad kala garato dadka oo dhan isku wada mid maaha isku wada khibrad maaha isku sina looma wada hogaamin karo hogaamiye markaa najaxay haddaad aragto oo dadka oo dhani ay wada daba socdaan ama institution najaxay haddaad aragto hogaankiisu wanaagsan yahay waxa weeyaan xaalad walba qof walba muxuu kula dhaqmayaa xaaladiisii gaarkii afartaa isteele ee hogaaminta ee loogu talagalana uu raacaya waayahay halkii hore haddaan idinku celiya markaa iminkaad si fiican u fahmaysaan aragtidan haddaba situational leadershipka labadaa aqoon-yahan baa soo saaray waa ninka Paul Hirsi la yiraahdo iyo ninka Blanche loo yaqaano weeyaan waayahay waxa la guuri waxay aaminsan yihiin aragtidani waxay sheegaysaa there is no one best style of leadership inaanu jirin wax la yiraahdo leadershipka kaasa ugu fiican maya khalad weeyaan the best styleka marka ugu fiicani will depend on muxuu ku tiirsanaanayaa situation marba xaaladda markaa jirta weeyaan waayahay and the task iyo shaqada meesha taala xaaladda